السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة شكرا جنركية ترسيا كسر دبادة وعليه قالجة موضوعي ما تحكوا كسابسية هاي درين كرجع محا دب وديجة أما محا سيرية إن شاء الله هديت كعسب تاي سبسكرايب صار جنرك هديت كعسب بين مقال كلا كري ونشي شر كري أصحاب هذا هدينا نقول كلا مقال كنا وحينو سوق عندنا شن وحيابات أو دردر جلية إن الدرين كرجع هاس أو صعطة أم أي hoos ay maraan ama uu noqdo mid low ah waxa kamid ah kow walwalka ayaa kamid ah qofka walwalka badan markasta walwalkiisa saidka ah oo markaasi dareenkiisa hoos uu noqonaya laba niyad jabka badan qofka markasta niyad jabiya wax kasta uu sameeyo xitaa haduu maanta uu qabto shaqo badan xitaa laha shaqo maadan qabanin maxaa noo qabato la dhaho kale qofkaasi asagana oo niyad jabka badan asal markasta stress ku furan uu keeni karaa saddex stress ka badan stress haduu kugu furan yahay maskaxda buuq oo maalin kasta buuq ku dhex jirtid markaasi asagana hormoonkaaga hoos ayuu dhacayaa afar fikirka badan mar walba waxyaabo micna dara ah hadii aad ku fikirto asagana hoos ayuu dhacayaa dareemahaaga shan cuntooyinka xumida ama cunto xumida cuntooyinka aan isku dheelatirin qofka aan haysan oo kale asagana way kamid tahay waxay keenaysaa waxyaabaha badanaa hoos u dhiga dareenka ninka ama hadaba intaasi aan kor ku soo xusnay ninka waxay u keenaa inay hoos u dhacaan dareenkiisa dabiiciga ah ama hamadiisa ama kacsigiisa markaas dabiiciga uu lahaa waxaan shaki ka taagnayn fikirka badan iyo walwalka in uu ninka ama naagta ka yareynayso ama ka yaraanayo ama heerkii hore ay u taagnaayeen dareenkooda uu ka soo yaraanayo ee dareenka kacsiga waxaa la mid ah wax kasta oo qalbigaaga mashquuliya ama maskaxdaada mashquuliya cabsi ama xanuun ama fikir daran ama dhamaan dareenka ay yareeyaan hadii aad markaasi intaas qabto inaad markaasi aad sameyso dadaal badan si aad uga soo qofka haduu uu cuno cunto kasta oo xaaladiisana iska bedeli weydo maahan mid markaas dareenkiisa sidii hore ku soo laabo waxa iga tala ah in aad markaas fikirka walwalka in aad yareyso kadibna stresska ku jirtana aad ka baxdo oo qaadato cunto isku dheelitiran suuxi hore na aad quraacdo hadaad quraacan jirto 4 saac ama 3 saac ama 2 saac in aad joojiso nus saac ama halka saac in aad markaas aad quraacdo ugu dambeys hal saac bar hal saac in aad quraacato cunto isku dheelitirna cunto yareysana waxyaabaha maskaxdaada mashquulinaya ama u geysanaya dhibaato oo kula tagaysa fikirka oo kula tagaya waa in aad markaasi joojisaa talada sida aad qaadato iiwaanadan insha Allah waxa rajeenaya in aad ka soo kabanaysid heerka badan ee markaasi aad ku jirto inuu hamadaada hoos u dhaco hamadaada hoos u dhacdana oo anta hamadaada hoos u dhacdana marka qaar waxay sababi kartaa biibax degdeg ah ama xaaladaasi in aad ka soo marka insha Allah haduu rabaa ka noqdo hadii uu ka cajabkay muuqaalkeena la karee uu share karee asxaabtaada hadii aad ku cusub tahayna kamid ahayn asxaabtii hore inaga joogin fadlan in janaalka subscribe inoo saar waan ku mahadsan tahay